سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد مرتضى شرفت لي مرحبا قولك علماء الدين ملحنا هيادها أقوية هندا يردمان مرتضى شرفت عنك نسبوكتي مدي صلاة تا وقاشا يردمان مرتضى شرفت عنك نسبوكتي مدي وحمد السلام يا صلاة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام ما أنت واحد يسكون مني حفلة فريتانكا شركة إسكارسينتا سامتل تاسو كبيرة بدونتا قولكا دلكنا بودعان كبيرة بنتي إسكارسينتي إن شاء الله نقول دونتا mid tayo leh oo ay dadku ku soo hirtaan. xafladeena waxaynu ku furan doonaa aayadaha quraanka kariimka oo inoo akhriyo Sheekh Jaabir. falyatafadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. انت كذب وحن نقلد دونا فريتانكي حفلة iyo warbixinihii ku saabsanaa shariikada waxaana magaca shariikada ku hadlaya oo warbixin inaga siinaya habsocodka shariikada Master Yusuf Muuse Ducaale maareeyaha shariikada Somtel. falyatafadal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدحنا قولك صلاةين تري عقاشة بروفيسورada jaamacadaha dhakhaatiirta macallimiinta ururada dhalinyarada iyo haweenka culimada iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته. salaada badeed waxaan idinka mahad celinaynaa sida wanaagsan ee sharafta ku jirto ee aad u qadariseen martiqaadkii aan idiin fidnay aad baan idinka mahad celinaynaa. runtii waxaad hayseen adeegyo kala duwan ayaad bulshada u hayseen idinkoo la ixtiraamaya darteed ayaa waxaad uga timaadeen adeegyadii aad hayseen inaad ka soo qayb gashaan xafladan. marka mar labaad aad iyo aad iyo aad ayaan idinku mahad celinaynaa. intaa dabadeed waxaan iskugu nimid saaka xafladda furitaanka shirkadda cusub ee isgaarsiinta ee la yidhaahdo Somtel. runtii shirkaddani ma cusba marka dhinac laga eego waayo waxay ka jirtay oo ka shaqaynaysay gobollo dalka ka mid ah sida gobollada bariga. waxay ka shaqaynaysay gobolka Togdheer Sool iyo Saaxil inta hore ay u shaqaynaysay. haddana waxaa lagu ballaariyey dalka oo dhan iyadoo lagu sameeyey dubahabeyn iyo cusboonaysiin iyo casriyeyn iyadoo lagu sameeyey ayaa dalka oo dhan lagu faafiyey. waxaana shirkadda laga heli karaa adeegeeda laga bilaabo Laascaanood ilaa Looyacdo. waxaa laga heli karaa adeega shirkadda. shirkaddan waxaa leh maalgelinteeda inta badan hantiilaha la yidhaahdo Maxamed Siciid Daarshiil. mustaqbalka dhowna waxaa laga yaabaa in loo furo dadka
إن شاء الله كنت أصلا إن شاء الله تعالى مستقبل كله يضرب أول رجينا هذه أمريكا والحكاية بحية أديبية أي نوع تلاقي الشيء شركة سومتل runtii waxa weeye adeegyo door waxa ka mid mobile GSM oo runtii aan ka isticmaali karno internetka mobilkeeni caadiga ah oo aynu ka isticmaali karno internetka si fudud oo basiida waa adeegyada shirkadu ay noo soo kordhisay waxa kale oo ka mid adeegyada shirkadu ay soo bandhigayso ay soo gudbinayso dadweynaha waxaa loo yaqaano mobile banking oo macnaheedu yahay mobilkaaga inaad lacag ku dirsan karto laguguna soo diri karo adeegyada kale aad u baahan tahayna aad ku samaysan karto oo ku fushan karto iyaduna waxa weeye waa adeeg ay noo soo bandhigayso shirkadani waxaa kaloo ka mid adeegyadaas waxa loo yaqaano grouping oo macnaheedu yahay dadka isku groupka ama isku kooxda ee meel ka wada shaqeeya مثلا macallimiinta oo kale dhakhaatiirta oo kale dadka caynkaas ee kooxaha ee groupka u shaqeeya in loo sameeyo adeeg gaar ah oo waxa weeye kharashka la charge gareynaya runtii uu ka yar yahay marka labada qof caadi ah u xiriirayaan oo dadka isku kooxda مثلا macallimiinta iskuulada ka dhigaya oo kale markay xiriirayaan waxa weeye kharashka charge gareynayaan noqonayo kharash basiida oo runtii aad u yar taasina waxa weeye waa adeeg shirkadu ay noo soo bandhigayso waxa kale oo adeegyada ka mid ah inaad ka arki karto mobilkaaga wararkii adduunka oo nooc walba leh wixii caalamka ka dhacay oo nooc walba leh inaad ka daawacan karto ka daawan karto kana akhrisan karto mobilkaaga isaguna waa adeeg shirkadu ay noo soo bandhigayso oo ay u tala gashay dadweynaha waxa kaloo ka mid adeegyada shirkadda in qaraabada dibaddu ay kala soo xiriiri karto telefonkaada si bilaa lacaga kharash yar oo aan badnayn ayaa ku soo furnaysaa dadna qaraabadii dibaddu waxa si bilaa lacaga ay kula soo xiriiri karaan isaguna wuxuu ka mid yahay adeegyada shirkaddu ay u gudbinayso mujtamaca waxaa kaloo shirkaddu leedahay internet service oo runtii lagu isticmaalayo aalad la yidhaahdo H-modem oo wireless ah waxa weeye computerkaaga ama ha ahaado desktop ama laptop ha ahaadee aalad la yidhaahdo H-modem oo aad gelinayso dabadeedna si fudud aad u isticmaali karto adeegga internetka adigoo magaalada jooga adoo ka baxsan adoo safar ku jira internetka coverage ku ka jiro inaad ka isticmaali karto internetka taasina runtii waa adeeg aad iyo aad muhiim u ah oo wax badan ka tari doona baahida xagga internetka ee bulshadeena isaguna waa adeeg cusub oo muxuu shirkadu ay noo hayso ay noo soo bandhigayso internetkaas oo dhinaca kale speedkiisu ama xawaarihiisu aad iyo aad runtii u sareeyo waxa kaloo ka mid dibadda markaad la hadlayso haddii telefonku kaa go'o adoo dibadda la hadlaya in markaasi promotion yani lacag ay kugu soo shubi doonto aad ku dhammaystirato hadalkii kaa go'ay qadar lacaga marka hadalkii kaa go'ay ee qofka dibadda markaad la hadlayso ay markaad sida hadalku kaaga go'aba waxa weeye lacagta ay kugu soo shubto oo message kugu soo dhaco oo dabadeedna aad ku dhammaystirato hadalkii adiga iyo qofka aad la hadlaysay idin dhaxeeyey isaguna waa adeeg